السلام عليكم ومعلم محمود. عشركان وعشركان اللي حجمناد waxuu ka mid yahay casharadii xalaqaadka ahaa ee luqadda Sawaaxiliga ku saabsanayeen ka qaadanayna platformyada uu leeyahay Cilmi Academy ama YouTube ha ahaato ama TikTok, Facebook, Twitter iyo dhamaantood. Maanta waxaynu baranaynaa misemo kada dhowrkaas oraahyood ee meesha kaaga muuqda. Midka koowaad waa haraka. Haraka waa degdegsiimo, okay? Quickly ama quick. Haraka ama waxay aad caan u ah oo dadkan yaqaan waxay dhahdaa haraka hayna baraka, yani degdegsiimo door ma dhasho maamada hay'adda afka Soomaaliga ay u dhowdahay. Haraka haina baraka ni methali ambayo inasisitiza umuhimu wa kufanya mambo kwa utulivu na umakini, yani waa mahmah qofka baraysa in wax uu qabanayo uu qabto si degan oo bila degdegsiima, kwa sababu ukifanya mambo kwa haraka kunaweza kusababisha madhara, makosa, hasara au matokeo mabaya. يعني wax qofka duu degdegsiimo qabto yani dhibaato ama khasaare ay keeni kartaa. Tusaale ninka cuntada karna haduu si degdegsiimo oo kariyo cuntada way ka guban kartaa, ama darawalka haduu gaariga si xawaaro u socdo shil buu sababi karaa, sax? Mpisha akipika kwa haraka chakula kunaweza kuungua, ama dereva akiendesha gari kwa haraka ama kwa kasi sana anaweza kusababisha ajali kwa barabara. يعني darawalka ama qofka cuntada karnaayo ama qof walba uu qabanayo hadii uu degdegsiimo qabto dhibaato ay keenaysaa ama wax ayaa ka halaawaa. Midka labaad waa pole waa tartiib, waa lidka ama opposite-ka haraka waa pole tartiib. Mahmaada ayadana tii hadda aan soo sheegaynay lidka waxay noqonaysaa pole ndio mwendo, yani waa mahmaha ayadana ku barayso wix markii aad qabanaysid inaadan bila degdeg iyo si degan aad u qabatid. Midka saddexaad waxa way najua waan aqaana way, naijua waan garanaya ama waan aqaan. Midka afraad waxa uu noqonayaa sijui iyadoo waxay noqonaysaa ma garanayo. Najua waan aqaan, sijui ma garanayo. Midka shanaad waa tazama waa eeg, angalia amal, tazama fiiri ama look luqada Ingiriiska wax lagu yiraahdo. Midka lixaad waxa uu noqonayaa sikiza waa dhageyso. inta badan waxa maqashaan anigoo idin leh asanteni kwa kunisikiliza, waad ku mahadsantihiin dhageysigiina. Sikiza waa dhageyso, masikio iyadana waxay noqonaysaa dhago. Okay, midka toddobaad waxa uu noqonayaa nimepotea waan lumay waay. Saale wada u socotay ama masaajka u socotay waad ka luntay. Nimepotea waan lumay. Waan lumiyay markaad leedahay tusaale lacag haysatay baad lumisay waxaad leedahay nilipoteza waan lumiyay. Nimepotea waan lumay, nilipoteza iyadana waxa waay waan lumiyay. Okay, casharkan maanta ayuu ku yahay. Asanteni kwa kunisikiliza, waad ku mahadsantihiin dhageysigiina. Intaan casharkan